Somali toysa iskuti sadae hatbakina tagdarane tagera waligine. Xuska 1 Julaay oo ah maalmaha Israaca iyo midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta ayaa waxaa si weyn loogu xusaa dhammaan daafaha caalamka maadaama bulshada Soomaaliyeed sanadihii la soo dhaafay ay u suuragelin in gaar ahaan qurbo joogta cudurka coronavirus dartiis ay u dhigtaan ama ay u dabaaldegaan xuskan. Sanadkan ayaa waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin munaasabadda ee 1 Luulyo maadaama sanadihii hore ay suuragal u noqon. Dhanka kalena xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay oo gacan weyn ka geystay ganacsade Faris Maxamed oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Ankara ee wadanka Turkiga. Sidoo kale dadka ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Ankara. Sidoo kalena waxaa ka mid ah muwaadiniin ka socday wadanka Turkiga oo ayagu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin weynaynta maalinta weyn ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Ankara'dan Mogadishu'ya selam olsun. Ankara Mogadishu selam olsun. Bosna'ya selam olsun. Hargeysya'ya selam olsun. Bilgi'ye selam olsun. dhaqankeena iyo caadadeena aynu soo samaabixinno oo aynu kuraysanno wadooyin loo xiro fardo iyo geel sidaa ay awgeed maanta waxaad mas-uuliyad ka wada tihiin hablo iyo dhallinyaroba inaad calankii Soomaaliya wada gudan tihiin. waxaan leeyahay Soomaaliyeed maanta waxaa dalkeena gudbiyay waa qabyaalad sharaftaa laguma helo. waxaan idin leeyahay qabyaalad wallaahi sharaftaa laguma helo. qabyaalad meel kasta ay joogno waa inaan iska ilaahino. sababtaa wax nabad anfacaya waa dawlad, wax kastoo nabad anfacayana waa midnimadeena. quruxdiiyo sharafta naga muuqatana ilaahay baa caawa nasiib noo siiyey. runtii dareenkeena aad aan u faraxsanahay maana maanta jecel guurada kasoo wareegtayna xusno marka Faisal iyo ardayda dhammaan caadi ah walaal Soomaaliyeed runtii waxaan loo dhacday xaflad aad u qurux badan oo sharaf lahayd inkastoo aanu baahinay waxa weeye run ahaantii oo muhiim ah markasta in la weyneeyo xuska maalmaha qaranimada ummadda Soomaaliyeed oo ka wada dhaxeeyo maalmo qaran oo waliba horumar u noqdaan madaxda haddii noqoto madax safaarad iyo haddii noqoto madax waxa weeye ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. marnabadii mar saddexaadba ummadda Turkiga ku dhaqanaysa Soomaaliyeed khaasatan Ankara. maalintii ummadda Soomaaliyeed farxadooda iyo maamuuskooda iyo jiritaankooda ku saabsaneed ayaan ka qayb qaatay. aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed ee Ankara ku nool. waxaan leeyahay gacmahaad is haysataan. waxaan si aad ugu mahadcelinayaa walaalkay Faris restaurantiga Sanaag maamulaheeda. waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay sida aad Soomaalida isugu haydo.